الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. maanta waxaan ku sugannahay deegaankan miyiga waxa la yiraahdaa Walacle waxa uu ka mid yahay wuxuu hoostaga magaalada la yiraahdo Xubabays degmada isku shuban dadkaan ugu nimid halkaan waa dad Soomaaliyeed waxay ka yimaadeen Ceelafweyn gobolka Sanaag waxaad arkaysaa dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu ahaa guri aqal laba daryaalaha baynu dhisan jirnay dugsi buu ahaa qurux buu ahaa xarag buu ahaa hadda markii dadku waxay ku noolaayeen xoolaha ay ahayd oo xoolihii naftooda ciriiri gashay xoolihii baa waxa loola soo cararay halkaan inay xooluhu badbaadaan xoolihii waa badbaadeen oo gaajadii way ka hadhay laakiin dadkaanu waxay ku nool yihiin gurigaas aad arkaysaan waa banaanka cidlada cirka iyo dhulka waxba uma dhaxeeyaan iyo iyaga arrintaas markii aanu aragnay bishaan bilowgeedii xanuunkeedana aanu dareenay waxaanu tagnay magaaladii Boosaaso maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka oo hogaaminaya iyo shacabkii magaalada gudoomiyayaashii xaafaduhu waxa laga damqaday fariintii aanu qaadnay waxa dadku ay isku xilqaameen iyagoo go'aan ku gaaray inaysan caruurtooda dhaxamoon dharka caruurtooda miyiga jooga ee soo guuray inay dharkooda wax ka siiyaan hooyooyinku aysan dhaxamoon odayaashu aysan dhaxamoon dharkooda wax laga siiyo raashinka wax laga siiyo dugsiga wax laga siiyo gogasha wax laga siiyo waxaan leenahay alaabtii aad noo soo dhiibteen ee dadkiina noogu soo dhiibteen baan soo gaarsiinay mustayaashii raashinkii weelkii ay biyaha ku dhaasan lahaayeen iyo intii la awoodo oo kale إن شاء الله تعالى وحا هدنا بيانا لو شبيا أو مال أي هستان لو شبيا أنت سوحوي أنت أيضا كانوا جوجان ديجان كجوجان إن نجاي مرتينويين ديجان كوحكسون قداميه قبل كا وحكسون دقي دقمة بوساسو وحكسون مسؤولين بدن أو مدحوينه الدولة دو جامعين يسوي هذا وكجود بي أنت صارنا وحي أمريان دتك إن دتك لقب صدام وح أي قبان waxaan leenahay walaalayaal idinkuna dadkiina baa timaadeen inta joogtaan deegaanka dadka joogaad marti u tihiin iyagu waxay qabaan baad la qabaysaan waxay cunaan baad la cunaysaan waxay cabaan baad la cabaysaan waxaan fariin u direynaa intii kale aanu ka nimid waxa aanu hadda keenay dadka wax wada badan tarimayaan dhulku waa dhul qabow hadeer saacadu waa 4 saac oo dhow dhaxan ayaana lala fadhiilayahay oo waad arkaysaan qof marka cirka iyo dhulka aysan waxba uga dhaxayn ku noolaan kara oo ama waayeela ama ilmo yara waxaad ogtihiin inaysan jirin in meesha laga kaco oo dadka loo soo gurmado waxa loogu baahi badan yahay waa biyihii noloshu ay ku xirnayd iyo dadku weelkii ay biyaha ku shuban lahaayeen iyo wixii ay dugsan lahaayeen wax la cuno waa la iska heli karaa oo waxa weeye ama xoolahooda ha caataysteen ama si kaleba ha ku heleen waxaan dadkiinii baan idinka keenay dadkiinii baa idiin soo dhiibay gaala idin kama imaan carab idin kama imaan cid kale idin kama imaan waa ehelkiinii iyo dadkiinii haye sii socod waanu aragnaa إن الغصة مركي هرينا نلهوانا نسود ويجي سفيعا هذا نوانو أرجنا إن الوجو وضدك يجي نوجو وناجي ولا النمادي وذادي يحقاشي يحجرتي بمريانو نوجر جاري يعني لا هيبقى جرجارلي ما شاء الله مركي الحمد لله رب العالمين ولا اللي وانا هتسنتهين ده وحينين بفيدني وحبها يفرين وحيلتها يوتكيد ما شاء الله 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 ما أنت نبيان هلاي راشين كبار نراك هلاي هذين كله عافمات كبار نوي ما بختي ينقو قبية مركب بيه هذا ساكه واحد على سبع نراك الآن الآن دتك أنا وحنا كسو جورة هيسن هنتدو دينا كوار دماتي وحنا دماتي وحنا وحنا كيف سدا واي باك أنت إن وقت كعب سما وحنا نددهم بعد دتك مسوا أديجيو إن كبحي حذارك وقلت مركب دتك كادم بمحاس لهذا ما إيمان كرام إن شاء الله ما تدرس ما كنت تنسى جورا ما يا ده وحنا مهين باورت الشدار بيرفته تذكر مصاريف برا ودن كلتكو منا مهين يكسو جورا أنا واحد كيمي أوري تبع عرورة يصدر عليا يلا بقر أنا ماشي كيم وسعواي سعواي تولد كتمت تولد ما يا أي بان كيم أي لا أي لا بان كيم أنا جاي نكن كلبا وتجوا هاي تبارك حلو سعوايين باوركي قادوا هاي dadkii de maatadii iyo awrtii iyo meesha ka yaan ka kanim ana wada badan tuulada degantay buuhal ima soo jirtaa tuulada buuhal oo ku jira 200 kilomitir u jirta oo xagga Itoobiya ka sameeyay xuduudka oo saaran laakiin ka soo skay kulli ma soo baxeen hada kuwii naga soo kay barbaayala anagu Itoobiya ma gudubsanayn xuduudka Soomaaliland joognay laakiin ummad badan baan ka meesha اوكي كوي حدود كشيشي إذا كهاب وحي ما دمج هذا واجران كوي حدود كشيء توبيا جري
oo ka soo guuray Itoobiya baa halka jira had jooga oo taqaana waaqan lambaradooda awoodato lambaradooda ma hayo laakiin magacyadooda haya meesha degan ma ogid waxay degeen halkan Mareer bay degeen waxaan ku sugannahay dooxada Qardhaasaale ee ka tirsan deegaanka Xiriiro waa maalintii shanaad oo aanu dalkayaga iyo dadkayaga u shaqaynayno oo aanu dhex marayno bulshada isu soo hayaantay soo baadi guudhay ee deegaanada gobolka Bari isugu timid waxaan ugu dambeeyay maanta dadkii ugu dambeeyay ee ka yimid gudaha Itoobiya ee Bohoodla ka shisheeya oo 3 xameen iyo 3 maalmood geedi soo ahaa oo saaka degay ayaanu la kulanay wixii aanu gargaar gaarsiin karno waanu gaarsiinay waxaan ugu horeyn u mahad celinayaa hawshan faraha badan ee ballaaran ee wadaninimada ahayd ee nafurid ahayd cid alla cidii ka qayb qaadatay hareerahayga inta taagan ee ugu horeysa waxaan ugu mahad celinayaa marka ugu horeysa ciidanka booliska degmada isku shuban gaar ahaan saldhigga deegaanka Xiriiro oo dhalinyaradiisu ay u taagan yihiin har iyo hameyn siday amniga u sugi lahaayeen siday deegaanka u ilaalin lahaayeen siday dadka u caawin lahaayeen siday wax walba oo wanaaga uga shaqayn lahaayeen siday wax walba oo xumaana uga hortagi lahaayeen ururka horumarinta deegaanka iyo dhalinyarada Noobir sidoo kale waxaan la jooga oo hawshan qayb ka qaatay oo alaabtan iyo soo ururinteedii iyo soo abaabulkeedii iyo safarka ka qayb qaatay dalada Ungom oo ay wakiil ka tahay Xawa Cali Kaar sidoo kale waxa ka qayb qaadatay abaabulkeeda iyo soo ururinteeda hawshan xarunta cilmi baarista BDRC sidoo kale waxa kaalin libaax la ka qaadatay oo maalinta bilaabatay ilaa iyo hadeertan iyaduna hawshan u taagan hay'adda Tadaamun sidoo kale waxa iyaduna kaalin libaax la ka qaadatay oo bulshada inay gaarsiiso tabarucaad inay ururiso inay wax walba mar walba oo aan shaqo qabanayna tilaabo noola socotay warbaahinta SBC idaacadeeda iyo TV-geeda iyo website-keeda intaba sidoo kale waxa nagala qayb qaatay Puntland TV oo aan u mahad celinaynaa sidoo kale waxa nagala qayb qaatay Jubaland TV oo aan iyaguna u mahad celinaynaa waxa kale oo nagala qayb qaatay waa Bari TV oo iyaguna inta socdaalka nala socday meel walbana nala marayay sidoo kale iyo Radio Ergo oo ay ka wakiil tahay iyaduna Faadima Yuusuf taxadar sidoo kale waxa nagala qayb qaatay oo hawshan kaalin libaax la ka qaatay tabinteeda iyo baahinteeda iyo dhaqaale ururinteeda intaba Radio Garawe iyo sidoo kale warbaahinta Garawe online waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa maamulka gobolka Bari Dr. Yusuf Dado iyo sidoo kale maayarka degmada Boosaaso Engineer Yaasiin oo iyaguna ka qayb qaatay kaalinta ugu muhiimsan gudoomiyaasha xaafadaha gudiyada arrimaha bulshada iyo shacabka degmada Boosaaso ganacsatadeeda oo iyaduna kaalin libaax ka qayb qaadatay waxaynu hawshan oo dhan ujeedadeedu ahayd inaynu isku tashanno oo baahida ummadeena daboolano oo ummadeena aynu u gargaarno oo ummadeena u naxariisano labadii bisha waxaanu marnay halkan deegaanadan waxaanu kula kulannay dadkii oo markaa la degaya iyo qaarkood markaa ay degeen waxaanu aragnay dadkii oo banaanyaala xerada arigu ku xireysan yahay maahana wax kale meesha ka muuqda aan la arag dadku banaan cidla ay fadhiyaan qabowga ay weheshanayaan raashin aysan haysan weel aysan haysan gogol aysan haysan dugsi iyo aqal aysan haysan qayla dhaantaasanu qaadnay waxaanu gaarsiinay bulshada Boosaaso iyo bulshada dhammaan Puntland waxa laga qayb qaatay gudaha iyo dibaddaba hawsha sidii loogu kici lahaa waxa ka qayb qaatay dadka dibadda sida jaaliyadda Sweden oo ka qayb qaadatay jaaliyadda Australia oo ka qayb qaadatay sidoo kale Iftin Group oo iyaguna ka qayb qaadatay oo biyo dhaanka iyo hawshaas oo ka qayb qaadatay waxaanu soo gaarsiinay sidii loo gaarsiin lahaa biyo sidii loo gaarsiin lahaa dhar sidii loo gaarsiin lahaa raashin sidii loo gaarsiin lahaa baagaga biyaha sidii bacaha biyaha loogu shubi lahaa waana ay sii socon doontaa hawshaanu ma aha mid markaan istaagtay haddaynu intaas ku gabagabaynaynaa shaqadii laakiin waxa sii wadi doona ururka dhalinyarada ee Nadiyo inta aanu anaguna Boosaaso ka soo ururin doono wixii dambe oo inta aanu ka maqnaa la soo ururiyay iyo daafaha Puntland wixii ka yimid iyo wixii dibadda naga soo gaarayba inta ay abaartaanu socoto waxaanu inta ay waqtigaanu taagan yahay oo abaarta lagu jiro oo dadkan soo baadi guuray ay deegaanadoodan joogaan waxaanu u ballan qaadaynaa inaanu sidaas ugu shaqayn doono dadka waxaanu fariin u diraynaa dadkiina soo caawiya u soo naxariista u soo gargaara nimcada halkan ka daaday iyo raxmadan waxaanu annagu ku aragnay waxay noqotay mid dadka walaalaysay
dadkii Somaliland iyo Puntland u kala qoqobnaa dadkii Soomaaliya iyo Itoobiya kala ahaa dadkii Puntland iyo Galmudug kala ahaa dadkaas oo dhan iyo dadkii inta dhexdooda ku kala colaadsanaa ama dhexdooda ku dagaalsanaa inay dhamaantood maanta walaalo yihiin inay dameerka doonka wada dhaansanayaan inay bacda biyaha ku wada shubanayaan inay kiilada sokorta wada qaybsanayaan ilaahay inuu shooshkii dadka dhexdooda Soomaalida ka saaray inuu mideeyay inuu walaaleeyay inuu wanaajiyay intaba waa fariin aanu dadka ka qaadayno dadka kalena gaarsiin doono balanteena waa inaynu dadkeena u naxariisano hadeynaan inagu u naxariisan cid u naxariisanaysa lama arko hadeynaan inagu caawin cid caawinaysa lama arko hadeynaan inagu u gargaarin cid u gargaaraysa lama arko hadeynaan inagu wax tarin cid wax taraysa lama arko waxaynu wax tari karnaa markaynu warkooda helno markaynu dhex marno markaynu gaajada ay qabaan la wadaagno markaynu dhaxanta la wadaagno markaynu dhexdooda marno inta hawlihii aanu qabanay waxa ka mid ahayd markaanu deegaankan soo galnay كودي جنوري waxaanu ka soo bilownay degmada Bandarbayla waxaan abaabulnay bulshada waxaan aruurinay raashin waxaan aruurinay dhar waxaan aruurinay weelka biyaha lagu qaato waxaan aruurinay biyo deegaanada ay u dhow degmada Bayla oo dadku isku soo hayaamay ayaan u qaybinay iyadoo hawshaas ay nagala qayb qaateen qaybinteedii iyo alaabtaas shaqada gabagabeynteedii gudoomiyaha gobolka Karkaar iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal waa ka soo tagnay waxaanu nimid degmada isku shuban bulshadaanu abaabulnay dhar baan ka aruurinay lacag baan raashin baan ka aruurinay biyaanu ka aruurinay deegaanada ayaa waxa gaarsiiyay maamulka gobolka maamulka degmada isku shuban iyo waxgaradka iyo dhalinyarada ayaa iyaguna gaarsiiyay sidoo kale shaqooyinka aanu qabanayna waxa ka mid ah baqtiga oo la ururiyo si deegaanka loo ilaaliyo oo waxa way baqtiga laga gubo dadka oo lagu wacyi geliyo dhamaantood inay amniga xil iska saaraan inay dhamaantood amniga ilaaliyaan in dadka la soo wada dhaweeyo in dadka loo naxariisto in deegaanada la tuso taas oo dhanna bulshadu aad bay ugu heelanayd waxa socdaalkaas nagala qayb qaatay hay'adda Save the Children oo dhalinyaradii Soomaaliyeed mas'uuliyiinta ahaa sida Cabdiqafaar iyo Cabdiladiif iyo Cabdirashiid oo kala ragga mas'uuliyiinta ka mid ahaa hawsha ballaaran oo aan qabanayna markii ay arkeen iyaguna isku xilqaaray sidii ay hawsha wax uga qayb qaadan lahaayeen waxay go'aamiyeen inay bishaan dhamaanaysa ay $13,000 shaqaaluhu iska ururiyaan oo ay dadkan ugu tabaruci doonaan inta dadku deegaanadan degan yahayna bil walba ay $7,000 bixin doonaan samafalayaal Soomaaliyeed ayaa meel walba u diyaarsan gudaha iyo dibaddaba inay dadkooda caawiyaan inay dadkooda u deeqaan inay dadkooda u gargaaraan inaynu intaynu shisheeyaga wax ka sugi lahayn inagu isku tashanno meel walba aynu joogno aynu dadkeena u naxariisan una gargaarno xaaladda dadkeenu iyaga ka warramay oo waa laga dharagsan yahay dadkeenu waa banaanyaal qoraxda iyo cadceedda iyo dhaxanta ayay weheshadaan waxay u baahan yihiin waxay dugsadaan waxa ugu baahi badan waa weel ay biyaha ku shubtaan oo waxa ay leeyihiin weel ay biyaha ku shubtaan saaka ugu dambeysay gacantayadan godadka ugu qodaynay bacaha ugu xabaalaynay biyahana ugu shubaynay insha Allah taala hawshaasna waa wadi doonaa inta karaanka waxaanu rajaynaynaa inay sii socon doonto samafalka iyo gurmadka iyo gargaarka aynu dadkeena u fidinayno qof walbana kaalintiisa uu ka qaato qofkii hore aan uga qayb qaadan haddaan ku dhiirigelinaynaa inuu kaalintiisa ka qayb qaato waxaan haddana kelmadda ku wareejinayaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada Nadiyo Cabdicasiis Ismaaciil anigu waxa Cabdicasiis Ismaaciil Xamuud gudoomiyaha ururka horumarinta deegaamadan Nadiyo runtii marka koowaad waad u jeedaan xaaladaha deegaanka ka jira barnaamijyada ka socda waxa ka jirta xaalado adag duruufo adag runtii dad ka dhidhiyay oo barnaamijkaas ka qayb qaadashada waqti badan iyo juhud u hore way jiraan dadana wali hayna way jiraan runtii marka koowaad horta waxaan u mahadcelinayaa guddiga gudoomiyaha barnaamijkan dadka hadda wada horumarinta samafalka wada Maxamed Yuusuf Tigey oo runtii wax badan u maray oo miyi u seexday oo baadi u wareegay soo dadkiisa iyo dalkiisa duruufaha ay qabaan wax wala qaybsan lahaa runtii si ugu qareemi lahaa isaga iyo runtii teamka hoggaamiye la socda oo ka mid ah dalada Unkom oo ka socota Xaawa Cali sidoo kale saxafiyiinta la socda ee ka mid ah Radio Ergo waa mutaxaddar iyo idaacadii kale oo idaacadii kale runtii la soo xiriiriyay Radio Garowe SBC la soo xiriiriyay oo xaaladda meeshii marayso mid walba kala qayb qaad tibinaya xaaladda meeshii marayso runtii 5 bari baan hadda isla soconay oo hawsha kala qayb qaadanaynay in badan baadiyaan maraynay intaas waxaan u maraynay oo u soconaynay waa si aan dadka iyaga duruufaha ay haystaan wala qayb qaadano dhibaatooyinka jira ama aan ka wacyi gelino wixii aan gaarsiin karno gaarsiino waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddigii iyo dadkii deegaanka magaalada Boosaaso hooyooyinkii iyo abayaashii iyo dadkii isku xilqaamay hadii maamul ahaan lahaayeen inay soo ururiyaan waxyaalaha degdega ah xaaladaha kan ay ka mid tahay in dhar dadka dhaxantan banaankan jooga oo soo qaxay runtii waxa dad soo qaxay weeye dad soo guuray lama oran karo ninka soo guuray wixii soo qaataa laakiin dadkan waa qax
waxa soo ka soo carreen abaar waxa ka yimaadeen dhibaato waxay u soo carreen halkan wax ku talagala iyo wax qorshe ah iyo wax nidaam ah oo u deganaa oo ku soo talagaleen ma jiro abaartii ka soo carreen way yimaadeen hadday yimaadeen marka dadkooda u yimaadeen waa la soo dhaweeyey waa la shaqeeyey waa la garab istaagay laakiin runtii dadka ay meeshan ugu yimaadeen dad iyaga ku dhaamo dhaqaale ma aha dad ismilaa wax kale ku dhaamo ma aha abaartu way wada haysay waxay kaliya ka soo roobka ka soo horeeyay marka runtii way soo dhaweeyeen inta dhaweyn karaan waxaan doonaynaa insha Allah dadkii runtii waa mahad celinayaa barnaamijka soo ururiyay waxaan leeyahay ka daalanina ma dhowa fari kama qodna hawshii insha Allah dadku sidii bay u tawaalaysan yihiin sidii bay qorraxdu u haysaa sidii wax u wadaan la yihiin sidii biyo la yihiin insha Allah anagana wixii Allah dadka ugu soo dhiibay si fudud oo wanaagsan oo dadaal leh baan u gaarsiinay ugala shaqeynay runtii aad iyo aad waxaan sidoo kale ugu mahad celinayaa ururkan dhalinyarada nadiyo oo afkooda ku hadlayo oo runtii ilaa maalinta roobku daa ilaa maantay aan baadiyo u joogno oo runtii aanu saan ugu soo tagay waagi aan wali magaalo ugu noqon way isiin way damiirkaygu inaan magaalo ku noqdo ummadana oo saan xaaladooda tahay cid kastoo timaada waan kala shaqeynayay waan garab istaagayay si aan iyagana aan facility ugu noqdo wax ula qabto kuwa kale oo tabaalaysan xaaladooda aan u sii helo xogtooda u sii helo qof kasta soconaya waan la soconayay mid kasta shaqeynaya waan la shaqeynayay waxaan awoodnana waa bixinaynay waan la shaqeynay ciidamada sida saldhigga deegaanka xiriiro oo runtii wax badan oo xaaladaha kala qayb qaadanay wax badan oo hawlaha soo falsaar aan kala qayb qaadanay dad wixii kasta oo khilaaf ama dhibaato oo culays oo yimaada oo runtii aan wax waaweyn ahayn runtii deegaankan ilaahay mahadiis weey amni baa ka jira barwaaqa ka jirta meel kasta oo labada qof oo wada hadlo xogaa isfiiriya inaan u nimaadno oo nidhaahno dadkiini weeye waxaad kaloo arkaysaa cid kasta oo is haysay oo khilaaf ka dhaxayay oo meeshaan timi way ilowday wixii ka dhaxayay waxay ogaatay kaliya deegaankan ay joogto inay waxay u timi oo ahaa daaq iyo ku noolaansho labadii markay heshay wixii kale ka gudubtay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid kasta oo u istaagta inay horumariso dadka iyo dalka oo runtii waxaan si gaar ugu mahad celinayaa gudoomiye tigay oo runtii markii labaad hadda soo laabtay aan rajeynaa insha Allah markii labaad inaysan ku dhabdamaynayne uu mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad soo laaban doono runtii soo juhud bixinayay soo baadiyaha u wareegayay soo xaaladda ugu jiray aan runtii aan annagiiba aan aragnayo runtii aad iyo aad baan barnaamijka u soo dhaweynaynaa cid kasta oo hawsha ka qayb qaadanaysana waxaan leenahay la soo degdega waxa aad damacsan tihiin insha Allah ka dhiidhiya dadkiina baa meeshan ku baahan dalkiina baa halkaan ah dadkii waa isugu yimi Soomaali kama maqna meel kasta ay joogto soo dhawaadaan leeyahay insha Allah waxaan leeyahay ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa guul iyo horumar waan isku tashanaa cid kale waxa ay sido carabtu waxay tiraa man takala saada qeyr daal juuco ninka kale sahayo sidoo ku talagala waa gaajada sareerata laakiin waxa aynu haysan isku deegnaa ku talagalaynaa si aynu wax soo ururinay marba soo ururinayna waxaan ugu deegayaa gudoomiyaha deegaamadan tuulooyinka kulli iyaguna is xilqaamaan sida is xilqaami jireen wax iska ururiyaan dadkan la soo gaaraan aad iyo aad baan u mahad celinayaa suxufiyiinta dadka halkan jooga dhamaantood haday ciidanka ahaan lahaayeen haday bahda takhaatiirta iyada nala socoto oo veterinariga xanaanaha xoolaha ah iyada sidoo kale u mahad celinaya dhalinyarta nala socota dhammaantood aad ugu mahad celinaya insha Allah waxaan leeyahay ku soo dhawaada deegaanka ka shaqeeya gacmo farmaan ku soo dhaweyn nadaan ururka nadiyo ama santii anta waxaan taaganahay dooxada Qardhaasaale waanu ku soo gabagabaynay socodkii 5 casho aan alaabta ku qaybinaynay tiinkii hogaaminayay gudoomiyihii hore Maxamed Yuusuf Tigay iyo baalihiisii iyo saxafadihiisii iyo dadkiisii waxa ilaahay mahadiisa wax ilaahay looga mahadnaqaa alaabtii boosaasan laga soo qaaday faraha badnayd haddii ay soconaysay 5 maalmood oo maalin walba dheeli la shaqaynayay oo 4-3 goobood lagu qaybinayay oo lala kulmayay population u badan haween iyo caruur haweenka iyo caruurtaas oo markaad u tagto sida ay ugu baahnaayeen ee salka ahayd qayla dhalaanta looga keenay ay sax ahayd oo aan ugu tagaynay iyagoo sida arigoo kale banaan fadhiya oo aan hooy lahayn oo kab lahayn oo karin lahayn oo weel lahayn waxay dhaxanta ka galaan lahayn waxay dhaxanta ka dugsadaan lahayn waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inay shaqadaasi soo gabagabowdo haween ka badan 20 kun oo haweenina ay ka faa'iideystaan iyadoo qayla dhalaantii sax ahayd uu ka keenay aqoonyahankaas oo daraasadeeyay oo dadkiisa u danqaday iyo intii garbihiisa ahayd ee muxuu ahayd u hiilisay ee walaalihiisa ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay reer Boosaasood alaabtii aad noo dhiibteen way gaadhay waa lagu farxay waa la idinka mahad celiyay wadan aad u ballaaranna way soo martay sida tooska bay gaadhay walaalaha kale ay dhageysanaya ama ay maqlayaan waxaan ka rajaynayaa saasoo kale inay u soo gaarsiiyaan oo ugu soo dhiibaan dadka u heelanayaasha ee madaalayaasha ee 24 saac u taagan ee biyaha iyo baadka ula gurmanaya dadka ka soo guuray meelaha fogfog sida Burco kale Eerigaabo oo kale meesha la yiraahdo maxaan ku sheegay gaalkacyo kale
طعمه أو كله دولال أهدو كله فوق دتك سوكا معها دتك كسر جوري نقال معها دتك غير كسوكا كسر جوري معها ودتك كسر جوري دولال كفقار بشريت وحالسين يكيماني إثيوبيا سل كذا مركب وحنا الصومالي هالك ولا يسوق كان الصومالي وأكو ولا لودي صومالي وحوي إلهي ويسلا صوت دون حكمة باكوتشتا هلا جفايد استسيد اللي جفايد استي إن شاء الله بحن كرتشينا يا عد كيجا أنت إجران سيء أنت مقلي سيء أنت محوها هذا جيسان دون تبع إن كفايديان وقف كستا ولالكي وحوبها هي كبتي وحوبها هي كرنتي وحوبها هي دركي وحوبها هي هو شدي قفك قا صوبحيه وقف بوحتريا قفك كب صوبحيه قف بوحتريا كبدن كبخيان sidoo kale waaba wasi fiican شو عن بقى ما تك مع ما يسال انت هذا كورم انت دنيا او تاسك ما فانا هاي هم قدام الليل هاي ترى شو هاي ساي كان ورد ما تمر تابع waxaan oo miskita maartayna soo goyn dusku soo dooshaa warriga ma garanaysa saay ka soo suk سكدة نين يسي وقوتر دور حبة قاعكس تروح كنيا ولا ولا إيه سكوكة تنقل هالك قحنسة dadkii aan dhex maraynay baan waxaan la kulmay hooyo waayeera halkaan marka iyada ay soo tilmaantay geedkan in xanuunsan inuu joogo jeedka iyaguna wuxuu ahaa dadka inaanu dhex marno bishaan bilowgeedii baanu halkaan marnay in dadku waxa ay qabaan aanu ogaano waxaan ku wacyigelin dhalinyarada wax baratay gaar ahaan caafimaadka baratay inay dadkoodii maanta ugu baahi badnaayeen ahaayeen dadku uu xanuunsan yahay dunyadu xanuunsan tahay waqtigooda inay ku tabarucaan aqoontooda inay ku tabarucaadaan in dadkooda maraan inay magaalada iska fadhiyaan oo lacag inay qaataan mooyee aysan wax kale qaban in laga fiican yahay oo ay ka fiican tahay inay miyiga wareegaan oo dadkooda daweeyaan oo dunyadooda daweeyaan arrin badtaasna dhaqaatiir fara badan ayaa soo ajiibtay hadda waxaan nagala socday Dr. Maxamuud Yariisow inta kalena waa ay diyaarsan yihiin waxaan fariinta ugu direynaa marka dhalinyarada aqoon-yahanka ay wax baratay gaar ahaan caafimaadka bartay inay dadkooda ku dhex wareegaan inay markaa kadibna dunyadooda sidoo kale iyadana ay dhex wareegaan si ay u daweeyaan oo u dabiibaan waa xaq lagu leeyahay fiican u جرع سبع الوكين يا ذا أنت ود. إمسا قبت حنكن. حنونا كنادر. إلى فراش ويا درك كويسة. حقات ميران باور كسر عين أحمسنا. كورجان صاي. أنت ما قادتها. يا. أنت مسكود ضي لا. أنا يوم. أنت خير مش مجرته حوي. أرجع المرة إيش فهذا دوتو السبنا أصلا معنا كذا هذه الوكان ما شراب والله على بوحني شراب شو قدي يوم قرني سكر الجو درن يا سكر هذه الجو درن ما واحد معنا حتى شاهين دود معنا هاي ده غفلوين بعتها ناس خسبت بالها نفتو وحي حنون كيس دفاعي كذا مركي أي وقت أنتو runtii waa farxad weyn inaan maanta halkan isugu nimaano inaanu caawino dadka iyagii Soomaaliyeed oo soo guuray runtii naqaana soo aaday haddaanu nahay ciidanka saldhigga xiriiro runtii waxaanu ka qayb qaadanaynay dhinaca amniga tiimam walba oo yimaada deegaanka shaqeynaya sidoo kale dadka soo guuray awalba dhulka amnigu ahaa in runtii dadka Soomaaliyeed maadaama bini aadan yahay waa la isku qaldami karaa waxuunba imaan kara in runtii aanu dhinaca amniga aanu ka shaqeyno alxamdulillaah rabbil caalamiin intii hadda roobkaan da'ay runtii wax culus aan dhihi karno waxaas dhacay ma jiro laakiin waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed kuwa soo guuray kuwa jooga inay runtii amniga ka shaqeeyaan waan u heelanahay waqti walba tiimka uu hogaaminayo gudoomiye tigay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay dadka u caawinayaan u dhexmarayaan tiimamka kalena wax ugu baaqaynaa sidaas oo kale inay runtii ay u shaqeeyaan uu gudoomiyuhu shaqeynayo tiimkiisu haddaanu nahay ciidanka saldhigga xiriiro iyo saldhigga booliska Shuban dhamaantoodba runtii waxaan u taaganahay har iyo habeen sidaanu uga shaqeyn lahayn amniga dadku runtii waa dhex marnaa har iyo habeenba waa maraynaa
dad walba oo meel isugu yimi waa ciidanka nambaradooda la siinaya si ay ula soo xiriiraan haddii ay wax arkaan waana taagannahay waxaan u baaqaynaa runtii dhanka amniga haddaanu ka hadalno in amniga la adkeeyo oo amnigu waa waxa shayga ugu horeeya oo qofka bini'aadamka uu ku nagi karo ama runtii lagu xisaabtami karo hadduuna amni jirin dee nololba ma jirayso sidoo kale waxaan u baaqaynaa dadka kale deegaanka joogay oo hore ugu noolaa inay iyagu sii adkeeyaan amniga ka shaqeeyaan in aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa tiiman walbana waa soo dhaweynaynaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.